بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر ماركي دقالك وبعد يوم بابي انت عدوي إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر ماركي دقالك وبعد يوم بابي انت عدوي إشي بوكتايكو بيكاسو كي بوغيو وابا ينادا كي كبايو وبابا أنا كي بوغيو وابا ينادا كي كبايو وبابا أنا برواقين تبيشيو مرشد فرتين ويه برواقين تبيشيو مرشد فرتين ويه إشي بوكتايكو بيكاسو وابا ياغا وايفتين كبير ستكيسا وابا ياغا وايفتين كبير ستكيسا ومجدقا كسو بحيسا وصومالي برادة هيدا ومجدقا كسو بحيسا وصومالي برادة هيدا إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر مارتي دقالك وبعد يوم بابي سعدوك إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر مارتي دقالك وبعد يوم بابي سعدوك إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر مارتي دقالك وبعد يوم بابي انت عدوي إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو إشي بوكتايكو بيكاسو واتابر مارتي دقالك وبعد يوم بابي انت عدوي إشي بوكتايكو بيكاسو كي بوغيو بابا ينادا كي كبايو بابا أنا كي بوغيو بابا ينادا كي كبايو وبابا أنا برواقين تبيشيو مرشد فرتين ويه برواقين تبيشيو مرشد فرتين ويه إشي بوكتايكو بيكاسو
Lama garan
guntiga suumanka dhexda loogu giijay soohow lama garanin waxa gallade sumada gaara afka looga koobay soohow lama garanin waxa loo gardaaji iskuulada loo baro gadoonka soohow lama garanin waxa loo gardaaji iskuulada loo baro gadoonka gobonnimadu maantay geed midha ka baxaya iyo guri barwaaqiyo dalxareeda nuutay gobonnimadu maantay geed midha ka baxayaan iyo guri barwaaqiyo dalxareeda nuutay gobol dheer noo garaba gedimayno marka hore waxaan idin leenahay ku soo dhawaada degmada Carmo soo dhaweyn kadib shacabka Carmo ilaa iyo saaki waxay u taagnaayeen aroortii sidii soo dhaweyn lahaayeen sababtana waa garanaynaa waxa weeye
shacabkani muddaba hadda wuxuu ku jiray kacdoon iyo dhibaato iyo waxyaabo baran oo uu xuquuq u leeyahay oo ka maqnaa sidaa la socotaan mudane cabdisamed maxamed gallan iyo ragga kale ee la socda ee degmadan u dhashay waxay muddo ka badan 5 bilood qarka u jireen waa xuquuqdiina weeye waxa idinka maqan alxamdulillah maantay degmada Carmo waxaan ugu soo dhaweynay iyagoo soo diyaar garoobay iyagoo u soo diyaar garoobay in ay raadiyaan oo soo dhiciyaan si sharaf iyo cis iyo karaamo ku jidho waan baryo lahayn xuquuqdii dadka deegaankan ka maqnaa dadka deegaanka Carmana aad baad ugu mahadsantiin sida u soo dhaweyseen aad baad ugu mahadsantiin sidii aad noogala qayb qaadateen markaan idin yeeray inaad soo dhaweynta ka qayb qaadataan gudoomiyaha iyo ragga la socda ee ciidanka ah wax badan oo waxtar ah bay noo ka baahan yihiin waxa la idinka doonayaa in ay isu taagtaan waxyaabo badan bay idinka rabaan khaasatan waxaan la hadlayaa gabdhaha degmada Carmo may maqashaan waxa la idinka doonayaa sidii gabdhihii gobolka Nugaal ay buskudka iyo burka iyo hilibka iyo cuntada u karinayeen markii ciidanku ku jireen dagaalkii Suuj sidaas oo kale la idinka doonayaa maanta ciidanka iyo cabdisamed maxamed gallan nin walba dantiisu qabsan kara cabdisamed maxamed gallan wuxuu aadi karay dunida meeshuu doono laakiin wuxuu isu taagay oo qarka iyo dhibaatada iyo abeesada uu la hurday waxa weeye waa xuquuqdiina in la helo idinkuna taa waa ogtihiin soo maaha sidaa daraaddeed waxaa layna ka doonayaa naf iyo maal hiil iyo hooba inaan garab istaagno wax walba oo jabhadda ku yimaada diyaar baa ogtihiin soo maaha waad baa u mahadsantihiin gudoomiyaha iyo jabhaddana waxaan leenahay raggii ciidanka la socda dareema inaad guryihiinni timaadeen dareema in shacabkiinu idin jecel yahay oo idin taageersan yahay idinkuna sidaa inaad dareentaan baan jecel lahay aad baa u mahadsantihiin marka ugu horreysa waa idin salaamaya waxaan idinku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waa idin mahadcelinaya waxaan idinku mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha badan oo aad nagu soo dhaweyseen oo farxadda badan annagana farxad niyadiyadu ay aad u kacsan tahay oo aanu dareen badan dareemayno aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna marka saddexaad safar baanu ahayn hadda ka horna waa isu nimid ballanqaado aynu lahayn oo aynu ka ballannay oo safarka iyaga hadda maantaya ka turjumayay oo ahaa inaanu mar labaad idinku soo noqon doono idinlana soo degi doonona waa xilligii aan idinla ballanno idina waydinla soo degin marka saddexaad marka afraad intaan ku kala dhammaysan mayno waqti badan baa inoo haray waa wada joogaynaa waa iswaraysanaynaa waxyaabo badan baynu iska waraysan danaheenaynu ka tashanaynaa fadhiyo badan baynu yeelanaynaa gurugurub baynu wada sidaynaa waa wada joogaynaa taasna iyadana halkaasaan karoonay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa xilli gaaban idinku dheerayn mayno hadal wax badan baynu wada joogaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin gurboodka iyo dumarku gaashanka waasitaan waxaa la gami weyday gafkaan marnaba harayn gardaramo golis go'aankaagu waa midnimo garyaqan soomaaliyeed aan la gaarinow gobiyo naankiisow gacmo furan ku soo dhowow salaantii gaar ahaaneedna naga gudodaalkan hogaamin kara dadka matali kara oo meel dheerka duuli kara kana dugsi kulaah qaabyaladaan tanayn dulmiga diidaya dibindabya lagu aqoon cadaalada doonayo iyo deriska oon la durin
دبان تقبضي روح يوتيوبين وكاسيجي قبل كباري وقراسه قرتي دقاسي قلها نبدا سوداوي برناقصي قوا شرعية قلو قيان وعين منكي قوشادا نعب قرنا وكرفورين سومالي دا قوضها قدر نبتد وفيدي وقاس كافي قودا نبدي صدار ونغو درقاري باي سرق وشواليقا أهايا ويا يوضوك دهالوغو أما ومدن يهوى يستاهلا أمريكا مادي وين أسيا بدمان إمارات مدوفي وين أسيا عربيت أديك تلكيسا يوين تبوري عليك برتك على جفاف باورك مدعو الله يا بارك بسجاره وفيه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore aad bay farxad iigu tahay saaka degmada Carmo anaa laygu soo dhaweey inaan galabtana cid ku soo dhaweeyo farxad bay ii tahay. waxaan rabaa inaan ka hadlo reer Carmo iyo ciidankooda geesiyaasha ay hadda u yimi inay maxay ahaydey amniyadda koowaad inay amniga siiyaan. amniga innagaa u wada baahan magaaladan iyo raggan hadda yimi ee soo galay ee lagu soo dhawaynayo ciidanka ah waa raggii magaaladan u dhashay ee amnigeeda inay lafdabar ka noqdaan ee waajibka ku tahay wey. waxaan rabaa inaan idiin sheego nabadgelyaad haysataan deegaanka Puntland nabadgelyaad haysataan. anigu waxaan ka imi Jubbaland Kismaayo meel la yiraahdo markaan arkay sidaad hadda meeshaan u joogtaan oo isugu dhex jirtaan oo waxa weeye wax cajiiba ila noqon annaga dhinacayaga saas lama noqdo laakiin waxaad tihiin dad nabadgelyo haysta. waxaan anigu idin leeyahay nabadgelyada adkaysta midnimo iyo maxay ahaydey wada jirna wixiina ha ku dhammaadeen. anigu runtii waxa weeye safar gaaban oo 7 beri baan meeshaan ku joogay garowaan 7 beri joogay saakana degmada Carmo iyo Boosaaso inaan soo gaaro oo soo booqdo muddo kooban inaan joogo baa qorshaygu ahaa. aad bay farxad iigu tahay sidii saaka meesha la iigu soo dhaweeyey dadkii saaka soo dhaweeyey haddana iyagoo inta ka tiro badan ay raggan galabtay meesha degmada yimi ciidanka inay soo dhaweeyaan. aad bay farxad iigu tahay aad bayna qurux badan tahay. waxaan leeyahay guulaysta allah idin guuleeyo. anigu hadalkayga intaas baan oran doonaa. kollay odayaasha dadkaan ku aftirsaday oo deegaankan hadda jooga baan ka mid ahay. waxaan jeclahay wax walba inay wanaag ku dhammaadaan. Soomaaliya maantay xabadi xal maaha xabad la yidhaahdaa xal maaha. una malaynmaya hadda inaad xabad ku wadataan inaad hadda deegaanka Puntland inaad dhibaato ka abuurtaan laakiin dareenka aan qabo waxaan filayaa inaad wax walba wanaag ay ku dhammaan doonaan. waana idinla joogi doonaa insha Allah. fadhi baan isku waraysan doonaa odayaasha deegaanka iyo raggan mas'uuliyiinta ee hadda degmada yimina waa is waraysan doonaa insha Allah. wixii tala ahna waxa weeye fadhiyada odayaasha insha Allah ku dhiiban doonaa. aad baan u mahadsantihiin waana idin soo dhawaynaynaa. anigu saaka degmada lagu soo dhaweeyey galabta anna waa idinku soo dhawaynayaa waa mahadsantihiin. waxaan codsan lahaa raalli ah si aynu isu maqalno oo aynu xogta u kala qaadanno inaad kaxisaan bulshadaynu isku maqli karo. marka ugu horraysa waxaan ka mahad celinayaa oo aan la qabaa mahad celintii saaxiibadaydi iga horreeyey
waxaan la qabaa saaxiibadayda iga horreeyey sida sharafta leh oo gobonnimada leh oo midnimada leh oo dadnimada leh oo ilaa saakay aad u taagnaydeen haddaad tihiin shacabweynaha degmada Balligudud bannaanka magaalada cafwan degmada Carbo aad u taagnaydeen bannaanka degmada iyadoo ay tahay maalin ramadaana kulayla ah haddana aad u soo banbaxdeen inaadna soo dhowaysaan oo ka mahad celinaynaa farxadaan la soo koobi karin bay noo tahay maantay oo ah maalin talaada ah bishantiina ay tahay 2026 inaanu idinla qaybsano idinla wadaagno farxadda soo bixinta iyo qiimaynta iyo qadarinta aad u hayseen wiilashii u baxay bannaanka iyaga oo ka gadooday iyaga oo ka diidiyey iyaga oo ay u dhadhami weysay waxa ka socday gudaha Puntland qaabka loola dhaqmayay deegaamada tan qaabka loo midabta kooray oo cunsuriyadu ay ku jirtay inaha iyo inanka badan iyaga oo ka diidiyey darteedna bannaanka ugu baxay maantay inaad ku soo dhowaysaan waxay idinku tahay waajib iyaguna waxay u yeesheen xaq waxaa hortiinna ka muuqda maantay ciidamada soo celinta sixidda turxaan bixinta Puntlandkii dhabka ahayd oo xuduudaha la yaqaanay lahayd oo ahayd tii la wada dhistay 98 oo kala wadaagga lahayd oo dhaqaale wadaagga lahayd oo timidda lahayd oo power sharingka lahayd inay dib u saxaan inay ku celiyaan meeshii ay joogtay oo wanaagga ahayd iyo meel ka wanaagsan waxaa idiin muuqda maantay ciidan iyo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin awooddeeda leh u diyaar garoobay inay hawsha iyada ah fuliyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in arrintaasi ay wanaag ku dhammaato arrintaasi inay ku dhammaato rabitaanka shacabka inay arrintaasi ku dhammaato midnimo inay arrintaasi ku dhammaato guul in la gaaro hadafkii kadibay bannaanka inay ciidamadu ugu baxaan in la gaaro baanu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa sida uu tilmaamay sarkaalkii igaga horreeyey hadalka ma aha markii koowaad mana noqon doonto markii ugu dambaysay oo aynu wada hadallo ama iswaraysanno waxaa jiri doona shirar joogto ah waxaa jiri doona shirar qaybaha kala duwan ee bulshada aanu la yeelan doonno xogahooda aanu ku dhegaysan doonno iyo talooyinkooda annaguna aanu ugu soo gudbin doonno waxa ay nala tahay iyo sida aanu u aragno in lagu gaari karo oo cunsuriyadda lahaa inaydan ku dhaqmin waa ka dardaarmayna waxaannu sidoo kale aanu ka dardaarmaynaa in la ilaaliyo midnimada in la ilaaliyo wanaagga in la ilaaliyo amniga in la ilaaliyo horumarka intaba waa ka dardaarmaynaa magaalada tan ama degmada tan Carmo waa magaalo istiraatiiji ah waxa ay dhacdaa oo ay ku taallaa goob istiraatiiji ah waa in la ilaaliyaa oo wax badan la xeeriyaa maritaanka dadka waa in la ilaaliyaa shucuurta dadka waa in la ilaaliyaa waa inay noqotaa magaalo dadka u dhaxaysa waa in laga dareemaa xadaaradda ay leeyihiin dadka magaalada degan waa in habdhaqankeeda laga dareemaa waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay ciidankii iyo siyaasiyiintii bannaanka 6 bilood jiray oo u maqnaa masaalixda
iyo danaha shacabka idinku aad ka midkiin ay leeyihiin waxaanu ballan qaadaynaa hadduu ilaahay idmo ilaa ay dhammaystirmato oo qof walba xuquuqduu lahaa uu fadhigiisa ku helo kii ardayga ahaa uu helo ardaynimadiisa hadday tahay scholarship iyo hadday tahay waxbarashada qaybaheedu kala duwanaa hadday tahay marka uu waxbarashada dhammeeyo shaqadu xaqa u lahaa kan ganacsan inuu ka qayb galo siyaasadda inuu ka qayb galo iyadana xuquuqdeedii uu helo ganacsiga iyo mashaariicda ii jeclaa inuu ka qayb qaatan waxaana iyagana kula dardaarmayaa inay noqdaan ciidan dishibiliin la sidii laga bartay ciidan cadaaladda iyo sinaanta iyo kala dambaynta ilaaliya horseeda midnimo iyo xuquuqid la'aan xuquuqda maqannimadii iyo geesnimadii ay ku dooneen ku dhammaystira mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dhallinyarada iyo hablaha degmada tan iyo magaalada tan oo qayb dhibaax leh ka qaatay kacdoonka kan taageero lama ilaawaanana ka geystay mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah aad na siiseen hadday tahay soo dhaweyn iyo hadday tahay marxabayn iyo hadday tahay inaad noo muujisaan garab gaashaan inaad noo tihiin aad baanu uga mahadcelinaynaa dhammaantiinna waa mahadsantihiin suldaankeena horihiin shaqooyinkana waa soo dhawaynaynaa waana ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta uuna soo dhaweeye waxaan uga baxayaa intaa iyo is-aragyo badan u soo noqnoqda waxaad ku jiifataan amni waxaad ku soo toostaan amni ciidamada qalabka sida hortiina taagan waxay ku taagan yihiin sidii aad nabadgelyo ugu shaqaysan lahaydeen ugu noolaan lahaydeen ugu seexan lahaydeen dadka u dhex mari lahaydeen saacaddan laga bilaabo waxaan odhan karaa